نحيا نتألق خيرا وسخاء نتوهج خلقا نبويا نتعاون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كينا ليبان تقوكا وقيبتا سدح الطبانات أما تقوى هذا دونه حقوق ذا والدك وكلية هاي عروتيسا يسيدو كلا عروتا حقوق ذا كلية هين والدك وذا شيخنا أنا كبلاونا والدك حقوق ذا كلية هاي عروتيسا وما حي حقوق ذا كلية هاي والدك عروتيسا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أنكو خلافه هي أن له والدك حق المها كلها هي هذا أصله صح كدبنا وحيمانيسا حقوق ذا المه وكلها هي والدك أديت هديس أن كذا إسك تنازله أو أن سؤالها سيدة أوقاته حق كوباد ولدك والدك كلها هي وإنه الراديو هو يفي عنه الله قضب مهمة وايد ماشي هسه كبلابني halkaas ka bilaabanaysa meesha ay ka bilaabanayso waa in uu aabuhu sahan wanaagsan hada qofku markuu doonayo inuu meel u guuro muxuu sameeyaa wuxuu weydiiyaa meeshu u guuri doono meeshu jaamacadda ka bilaabi doono meeshu degi doono ayuu weydiiyaa su'aalo badan buu weydiiyaa qofku markuu doonayo in uu reer sameeyo gabadhuna waa inay raadisaay caruurta dhali doonto aabba noocee ah ayaad ku habboon aabbuna waa inuu raadiyo ilmahan hooyo noocee ah baa ku habboon halkaasay xuquuqdu ay ka bilaabanaysaa marka koobaad walidaalika ayaan kelimada waxaan ku khatimayaa cali ibn abi taalib nin baa u yimid dacwoonaya wuxuu ka dacwoonayaa wiilkiisa wuxuu leeyahay yaa amiira almu'miniin wiilkayga ima maqlo ima dhegaysto wiilkii buu ka dacwooday waxaa loo yeedhay wiilkii amiir mu'miniin baa u yeedhaya cumar ibn khataab radiyallahu ta'ala anhu wuxuu yidhi maxaa kugu dhacay oo aabbahaad u maqlaaday wuxuu ku yidhi yaa amiir mu'miniin horta aabbahay wax xaqama ku leeyahay waqtigeedabaad wuxuu yidhi haa waan ku leeyahay waad ku leedahay maxaad ku leedahay horta inuu hooyo fiican kuu raadiyo kow markaad dhalatay inuu magac fiican kuu bixiyo iyo inuu qur'aanka ku baro saddexdaa xaq waa saddexdaa ay arrintu ka bilaabato meel kale la isba gaar weynaan iyo lagama hadlayo waxay ka bilaabanaysaa in hooyo fiican loo raadiyo waxay ku xigta in magac fiican loo bixiyo waxay ku xigta in qur'aanka la baro qur'aanka waxa laga wadaa in xuquuqdii iyo diintii iyo salaadii iyo waajibaadka in la baro wuxuu yidhi yaa amiir almu'miniin aabbahay intaa midna ma samaynin marka waa saddexdaa mid waa daawada waalidiinta badan hadda dhahaya wiilkayga xuquuqda ugu weyn marka koobaad haddaan lagu dooranin diin iyo akhlaaqda uu nabigu noo sheegay guurka haddaan lagu xulin hadde waxaa ka dhalanaysa hadhowto inaan ilmihii dayacmo oo tarbiyadii laisla fahmi waayo laba qof oon tarbiya waxba ka garanaynin markay ilmo wada dhalaan hadde ilmihii waa dayacmaya saa daraaddeed koow horta marka koobaad ilmuhu nacam xuquuq buu leh ibnuqayim aljawsiya kitaab dhan buu ka qoray hal mujallad ah ayuu ka qoray xuquuq الاطفال adduunka caalamiyan waaba la yaqaanaaba qur'aankuna ilaahay waa ku sheegay subxaanaه wa tacaala axaadiisa nabiga waa ku sheegay sal ly slm wa ammaano ilaahay subxaanaه wa tacaala dushka walidaalika wax ugu muhiimsan markii laga soo tago hooyo wanaagsan oo tarbiyaysa iyo aabbo wanaagsan oo tarbiyay markii laga soo tago ilmaha waa in magac fiican loo bixiyo waa in caqiiqo loo sameeyo oo mataqaanaa muslimiinta laga farxiyo wabitaali waa in 7 sano markuu gaadhaba ilmihii waxa weeyaan salaadii iyo cibaadadii iyo taacadii iyo akhlaaqdii iyo martidii iyo tarbiyadii marka xuquuqdaas uu ilmuhu leeyahay aad iyo aad marka waa maxay xuquuqda waalidka ay ku leeyihiin as-sam'u wa taa'a allah وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الطاعة بالمعروف حق الله بعد مركي لقى صوتك حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم حقك لو حويان وحق والدك حتى دي قالين أسماء بنت أبي بكر هو يد قال به عائشة حق أبهم بيقول لك أهي أسماء بنت أبي بكر الزبير بالعوام وقبي هو يد أو قال بقى أتمد مالن أيضا وحكى البنيس النبي قال أتمد يا رسول الله هو يد أو وحضونا بقى يتمد وأنا قال أفأصلها ما حري يا وحق ما يقوله نعم بيلي
hooyada waa inaad xidhiidhisaa shareecadeennu waa shareeco raa'ixa waa shareeco aad u macaan min maxaasin alislaam bayna ka mid tahay xagga dariska iyo xagga qaraabada xataa waalidka hadduu maxaa la yidhahda suuratu luqmaan akhri suuratu luqmaan akhri wain jaahadaaka على أن تشرك بي ما ليس فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وناقص الأولاد رغم يمركا والدكو حق إلمه كله وامحي وإنه إلمه مقلو وإنه مقع في عن أبيه أو يريه يدي وإنه سمجع يسوء قاون وسوير إلمها حق الأولى إنه صندهن هبل عثمان محمود أبو فلان وإنه له أبا وإنه متقنا مقع احترام له وإنه أو يره وإنه سهر صعنين مركا ولا صعدان وإنه كدم بياه hadday guri soo wada galaan ama meel la wada fadhiisanayo waa inuu asagu taagnaado ilaa waalidku u fadhiisto waa inuu waalidkii hadduu xanuunsaday uu ka warqabo yacni hadduu baahan yahay waa inuu baahi tiro hadduu dhibaataysan yahay waa inuu dhibaatada la qaybsado xuquuqdaasoo dhan buu waalidku aabbuhu ku leeyahay maxaa la yidhahdaa waalidka xuquuqdaas ma sii soconaysaa markii tarbiyadaasaa loo wanaajiyay midhaha laga dhalanayo la ka dhalanaysa waa labo ilmuhu asagoo yar inuu kuu saqiiro oo kuu dhinto oo aad ku sabarto sida umu sulaym iyo abu talxan soo marnay ilaahay agtiisa ajir weyn baa laga helaya allah nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ma ta'uduna ar-raquba fiikum qofka gablanka ah ma taqaanaan waxay dhaheen waa qofkan caruur dhalin ma yibidi waa qof aakhara imaan doona asagoon ilmo yar u saqiirin taa waa mid hadday ku saqiiraan way hadday ku weynaadaan oo tarbiyada wanaagsan aasiisana waxa weeyaan idaa maata ibnu aadama wa fi riwaaya idaa maata al-insaan انقطع عمله إلا من ثلاث وحكمه أو ولد صالح يدعو له المير الصالح وتربية سي مركز شو تربية سي وحاول صدقته بحين مساجده لسه يدعو كو دعينا انتبه وامره آخر الدنيا ده نصماها قرة العين وي هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وي وقرة العين سما قرن قرة العين وقروح أدو ونكسن وي صدر هذا وقرة حسنيسا المه عندها قرون يهي المها ويل كاجا مركض ويا دقبر هذا ها متقنا بكرهان قلبي جميل ونكسن بي يكود جيان مركا الدنيا ده نوع نعفي آخرنا الله أكبر halkan waxaan ku gabagabaynaynaa qaybta 13 ee barnaamijka liibaanta guurka aan hadlaynay xuquuqda ay ku leeyihiin عشاق الجنة العليا ودعاة الرحمة للدنيا سفراء للحب نشأنا وعلى الحب نعيش ونحيا